Bismillahirrahmanirrahiim. Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel waliba aad joogtaan iyo xilli waliba idin tahay waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha ee Bilal Media oo aad maalin waliba ka maqashaan waxyaabihii ugu dambeeyay ee laga qoray kubadda cagta. Haddii aynu ku bilaabno kooxda Barcelona ayaa guul muhiim ah ka gaartay kulankii xiisaha badnaa oo ay la ciyaarayeen kooxda Getafe ee horyaalka liigaha dalka Spain. Kooxda Barcelona iyo wiilasha uu hogaamiye Hansi Flick ayaa ku bilowday wacdaro ba'an horyaalka liigaha dalka Spain. Waxa ay shaqeysteen 21 dhibcood iyaga oo ciyaaray 7 kulan, weliba wax guuldarro ah ama bareejo aysan galin horyaalka liigaha dalka Spain inta uu socdo xilli ciyaareedkan. Si kastaba ha ahaatee, mar uu hadlayo Julius Kounde ayuu macalinku waxa uu ku yidhi, "Waan dareemayay inuu yahay macallin wanaagsan marka uu yimid qolka labiska ee kooxda Barcelona." Taasi ayaa noo suurtagelisay inaan meel wanaagsan ka joogno xilli ciyaareedkan marka loo eego horyaalka liigaha dalka Spain. Dhinaca kale, macallin Hansi Flick ayaa xalay waxa uu yidhi, "Guusha aan gaarnay kooxda Getafe aad ayaan ugu faraxsanahay inkastoo ciyaartii aad u adkeyd, laakiin muhiimadda waxay ahayd inaan helno 3 dhibcood, 3 dhibcood, 1 gool ku hel ama ka badan ku hel. Muhiimadda waxay ahayd in la qaato 3 dhibcood. Aad ayaan ugu faanayaa wiilashayda dadaalka ay sameeyeen," ayuu yidhi macallinka reer Jarmal ee Hansi Flick. Mar wax laga weydiiyey Ansu Fati maxaa dhacay oo daqiiqada uu heli waayay kulankii Getafe ayuu waxa uu ku jawaabay, "Ansu Fati 100% waa uu wanaagsan yahay, iminkana wuxuu diyaar u yahay inuu na caawiyo oo nala ciyaaro, laakiin aniga ayaa go'aansaday inaan doorto ciyaaryahano kale maadaama ay adkeyd ciyaarta. Taas ayaana ka dhigan xiddigan inay jiraan xiddigo kale oo ka wanaagsan oo ka soo baxay La Masia isla markaana matali kara kooxda Barcelona." Xiddigan Ansu Fati markii uu soo baxay ayaa loo arkayay Messi-ga yar ee bedeli kara Lionel Andres Messi, isla markaana la siiyay lambarka 10aad markii uu ka tagay Lionel Andres Messi. Si kastaba ha ahaatee, imaatankii Xavi Hernandez ayuu xiddigani mustaqbalkiisa dhulka galay kadib wuxuu aaday ama uu ku baxay kooxda iyo Brighton Hove Albion ee Premier League. Dib ayuu ugu soo laabtay isagoo dhaawacyo qaba, balse weli uu taam noqon layahay safka koowaad ee Hansi Flick isla markaana uu ku soo baxlayahay shacda koowaad ee uu hogaamiyo macallinka reer Jarmal. Mar waxa laga weydiiyey Hansi Flick Julius Kounde xaaladiisa iyo qaab ciyaareedkiisa wanaagsan oo ku jiro, wuxuu yidhi, "Waa mid ka mid ah dambeedyada ugu wanaagsan ama difaacyada ugu wanaagsan waqti xaadirkani, annagana shaxdeena asaga ayay muhiim u tahay isla markaana door muhiim ayuu ka qaadanayaa kubadda dhisitaanka iyo kubadda weerarka." Julius Kounde ayaa isbedel badan ka sameeyay kadib imaatankii Hansi Flick garoonka Camp Nou marka la barbar dhigo markii uu joogay Xavi Hernandez iyo xulka qaranka Faransiiska. Si kastaba ha ahaatee, Hansi Flick ayaa wacdaro ba'an ka dhigay horyaalka liigaha dalka Spain. 21 dhibcood ayuu shaqeystay, 7 kulan u ciyaaray horyaalka liigaha dalka Isbaanishka. Dhinaca kale, maamulka kooxda Barcelona ee Deco iyo macallin Laporte ayaa waxay heshiis cusub u saxiixeen xiddiga lagu magacaabo Marc Barnel oo ka soo baxay xerada La Masia ee kooxda Barcelona. Heshiiskiisa ayaa waxaa la gaarsiiyey ilaa iyo sanadka 2029 isagoo mushaar ahaan u qaata 20 bilyan wuxuuna isku bedeli doonaa 500 milyan, ayuu yidhi mustaqbalka mid ka mid ah maamulka kooxda Barcelona oo ka hadlay heshiiska lala gaaray xiddigani isla markaana u saxiixay kooxda Barcelona. Marc Barnel inkastoo uu qalin waqti dheer ah u qaatay inta ka dhiman xilli ciyaareedkan uu maqnaan doono, adeegiisa waxaa la sugi doonaa 1 sano kadib ayuu noqon doonaa mid caawin doona kooxda Barcelona iyo gagada Camp Nou. Wararka laga qorayo horyaalka liigaha dalka Spain ayaan weli ku guda jirnaa. Kylian Mbappe ayaa waxa uu doonayaa inuu si fudud ku soo kabto isla markaana taam ahaan u noqdo jir ahaantiisa, wuxuuna doonayaa kulanka kooxda Barcelona ee El Clasico ay isku jihi doonaan kooxda Real Madrid bisha October ayuu doonaya inuu si degdeg ah ku soo laabto. Xiddigani ayaa siigi doona 3 kulan ee kooxda Real Madrid ee wajihi doonto kooxda Atletico de Madrid, Villarreal iyo Lille. Si kastaba ha ahaatee, xiddigani balse ayaa wuxuu ku rajawan yahay inuu qayb ka noqon doono shaxda macallin Carlo Ancelotti ee weerari doonto isla markaana iska hor imaadi doonaan El Clasico xilli ciyaareedkan lugta koowaad. Ololihiisa ayaana qayb ka ah rajada iyo dadaalka uu ugu jiro inuu si fudud ugu soo kabto dhaawacii ka soo gaaray kooxda Deportivo Alavés. Si kastaba ha ahaatee, waan eegi doonaa Kylian Mbappe rajadiisa ku aadan inuu lugta koowaad ee El Clasico xilli ciyaareedkan qayb uga noqdo Real Madrid.
wajahitaanka ay wajahayaan kooxda Barcelona. Dhinaca kale horyaalka Serie A dalka Talyaaniga xidiga qadka dhexe ugu ciyaara kooxda Juventus Locatelli ayaa wax uu wax ka yiri hardanka iyo dagaalka loogu jiro qaadashada ama hanashada horyaalka Serie A dalka Talyaaniga ee isku daytaha waxa uu yiri weli waxa uu cadcad inay ku guuleystaan kooxda Inter Milano mar waliba koobka isku daytaha horyaalka Serie A dalka Talyaaniga waxa uu cadcad inay qaadato kooxda Inzaghi ee Inter Milano inkastoo ay jiraan kooxo badan oo wanaagsan sida AC Milano, Napoli iyo annagaba balse rajada ugu badan ayaa waxa ay tahay in kooxda Inter Milano ay haysato ugu cadcadaashaha ku guuleysiga horyaalka Serie A dalka Talyaaniga ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay Locatelli oo ganax uga soo laaban doona kooxda Juventus. Dhinaca kale kooxda Arsenal oo xalay kulan xiiso badan ciyaartay 5-1 ku adkaatay macallin Mikel Arteta ayaa waxaa wax laga weydiiyay xidigihiisa bandhiga ay sameynayaan dhaawacyada ay qabaan iyo waliba rajada uu ka qabo Raheem Sterling shaxdiisa uu ku soo baxayo. Mikel Arteta ayaa wiilashiisa xalay waxa ay wajaheen Gunners kooxda lagu magacaabo Bolton Wanderers waxayna 5-1 uga adkaadeen kooxdaasi. Bandhiga goolasha waxaa bilaabay Declan Rice, Noweri ayaa dhaliyay 2 gool kamid ah, ayaa kamid ahaa Raheem Sterling ayaa kamid ahaa xidigihii bandhiga wanaagsan ka sameeyay kulankaasi, mid uu caawiyay midna uu dhaliyay. Bandhigii goolasha 5-1 kaga soo adkaadeen kooxda Bolton Paro wareega 16aad ee EFL Cup-ka ee laga dhigo horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska. Si kastaba ha ahaatee macallin Mikel Arteta ayaa waxa uu yiri Raheem Sterling aad ayuu u wanaagsan yahay, waa xidig aad tayadiisa u sareyso, waa xidig aad u weyn, waxaana rajaynayaa inuu annagana na caawin doono isla markaana uu qayb ka noqon doono shaxdeena inkastoo ay jiraan doqyo badan aan leenahay laakiin waa xidig aad u weyn tayadiisana ee aad u sareyso. Si kastaba ha ahaatee David Raya ayaa waxa uu ku yiri David Raya waxa uu ku jiraa wadadiisa ugu dambeysay oo kusoo kabanayo laakiin ma qiyaasi karo waqtiga uu kusoo laaban doono garoomada ayuu hadalkiisa sii raaciyay. David Raya ayaa dhaawac ka soo gaaray kulankii xiisaha badnaa ee barbarada 2-2 la galeen. David Raya ayaa waxa uu dhaawac ka soo gaaray kulankii xiisaha badnaa ee 2-2 ay la galeen kooxda Manchester City garoonka Etihad Stadium taasi oo ka dhigtay in xidiga badan oo ay ka dhaawacmaan kooxda Arsenal marka la barbar dhigo David Raya oo dhaawaca soo gaaray Calafiori oo asagana daal dareemay iyo Julian Timber. Saakana sidiisii korma ahaan balse waxaa laga dareemayaa daal taas ayaa dhibaato ku noqon doonto safka uu hogaamiyay macallin Mikel Arteta rajadii ay ku doonayeen inay ku guuleystaan horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska taas ayaana ka hor istaagi karta ayaa la leeyahay. Si kastaba ha ahaato waan eegi doonaa xalka uu la imaan doono macallinka reer Spain iyo kooxda Arsenal. Haddii aan eegno kulamada ugu xiisaha badan ee caawa laga ciyaarayo horyaalka liigaha dalka Spain, Las Palmas ayaa waxay la ciyaari doontaa kooxda Real Betis 2 saac oo habeenimo Espanyol isla waqtigaasi waxay wajihi doontaa kooxda Villarreal. Celta Vigana 10 habeenimo waxay soo dhaweyn doontaa kooxda uu hogaamiyo macallin Diego Simeone ee Atletico de Madrid. Horyaalka Yurub liigaha waxaa laga ciyaari doonaa kulamo xiiso badan. Roma 10 habeenimo waxay soo dhaweyn doontaa kooxda Atletico Bilbao. Dhinaca kale Tottenham Hotspur garoonkeeda waxay kusoo dhaweyn doontaa kooxda Karabakh 10 habeenimo ay ciyaari doonaan oo kulamada ugu xiisaha badan ee laga ciyaarayo dhankan iyo horyaalka Yurub liigaha ee qaaradda Yurub. Dhinaca kale koob Italia Napoli waxay la ciyaari doontaa 10 habeenimo kooxda Palermo FC ee Monza 1 saac waxay la balansan tahay kooxda Brescia. Guud ahaan dhageystayaal saaxiibayaal inta kusoo gabagabeynaya barnaamijka ciyaaraha ee Bilal Media intuu barnaamijka hawada ku jiro waxaa idin socodsiinaya anigoo Bilal Daahir Waane. Waxaan ka codsanayaa intaanan soo xirin programka inaad meel wanaagsan aad gaarsiiso channelkaani isla markaana asxaabtaada la wadaagto si aad u heshaan warbixinadii iyo xogihii ugu dambeeyay kubadda cagta sida horyaalada Premier League ee dalka Ingiriiska, liigaha dalka Spain, Bundesliga dalka Jarmalka iyo anigoo aan ka reebeynin Serie A dalka Talyaaniga iyo Liga 1 dalka Faransiiska. Inta barnaamij lamid isku maqli doono sidaa iyo amaane Allah.